golaha wasiirada xildhibaanada maamulka degmada dadweynaha degmada Daynile iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan halkaan caawa iraahdo hambalyo inaan caawa u dabaaldegayno munaasabadda 26 Juun oo ah maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay ciidda Jamhuuriyadda Soomaaliya 1960kii waxay noo tahay runtii farxad aad u weyn waxa kale oo farxadaas caawa noo dheer halkaan ku dabaaldegayno oo ah degmada Daynile oo ku taala magaalada Muqdisho geeskeeda oo aan kula dabaaldegayno shacabka degmada waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiye Cabdiraxmaan iyo maamulkiisa iyo shacabka reer Daynile wadaniyada iyo Soomaalinimada ay muujiyeen reer Daynile waad mahadsantihiin isku duubnidiina iyo dawlad jacaylkiina iyo waqtigan oo ah saqdi dhexe inaad u soo jeedaan inaad marqaati ka noqotaan oo aad sugtaan daqiiqada qiimaha badan ee dadka Soomaaliyeed ay xusaan dhammaantiin waa idin hambalyeynaa tani waxay diraysaa caawa fariin iyo diilale waxay ku soo aadaysaa waqti aad u qiimo badan oo dadka degmada Daynile iyo guud ahaan dadka magaalada Muqdisho ay ku jiraan inay xiraan taariikh madow oo ay ku soo jireen waqti ku dhow 40 sanadood oo cabsi iyo argagax iyo amni darro ay ku hoos noolaayeen waxa Ilaahay mahadiis ah in caawa aad ku dabaaldegaysaan xorriyad inaad ku dabaaldegaysaan cabsi la'aan inaad ku dabaaldegaysaan horumar inaad ku dabaaldegaysaan mustaqbal ifaya marka waxay mudan tahay inaad labada gacmood ku qabsataan amniga iyo dawladnimada iyo horumarka aad ku naaloonaysaan waxaan uga baxayaa waqtiga oo yar awgeed halkaan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo aan iraahdo Soomaaliya waxa ka socda hardan laba dhinac la dhinac doonaya in ay Soomaaliya u kaxeeyaan jihada wanaagsan oo muddada dheer soo socotay oo ka shaqeynaysa Soomaaliya qurxoon nabdoon burwaaqo ah isku filan qarannimo sharaf badan ku hoos nool xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeedna ay sugan yihiin oo awoodooda ay gacanta ugu jirto taasoo dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta ay hogaaminayso fikradaas waxaa dhinac yaalla aragti taad beeninaysa oo doonaysa dadka Soomaaliyeed inay ku hayso mugdi inay ku hayso cabsi inay ku hayso horumar la'aan inay dadka Soomaaliyeed ka hor istaagto xuquuqdooda aragtidaas ayaa dhinac taalla marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waad mahadsantihiin inaad dareenkeena muujiseen waad mahadsantihiin fariimaha aad diraysaan caawa fariimaha ay direen maanta ardayda magaalada Muqdisho fariimaha ay direen dadka Soomaaliyeed halkaas ku taagnaada hayeelinina been abuurka iyo marin habaabinta mar kale hambalyo aad baan idinku hambalyeenayaa dhammaantiin